السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ودكتور يوسف. برنامج كان وأنا كنت لقى برنامج أقوم جود سيدات يوفى يديستان عاو حنكهر لنا سيدي أدوه اللي كرتها لف عافمات قبتها أما اللفه أي كل ما يستريهين معدنيه شركة إنه وباهنا أما لفه وباهناين لفه وحكا كوميهين صدح ميلهان وحكا كوميهين بروتين ميلنا وبيو ميلنا ومعدن معدنته كو بدن وحويه معدنها كالشيمكا لو يقانو caafimaadka lafuhu iyo adeega lafuhu waxay ku tiirsan yihiin inaad cunto dheelitiran iyo nafaqo oo nafaqaysan nafaqo joogto ah waxa ugu muhiimsan calciumta iyo vitamin D-ga marka hore ayaan ugu soo hadalay muhiimadda uu leeyahay vitamin D-ga fiidiyogan waa daawan doontaa haddaad u baahan tahay calciumta waa macdanta ugu badan ee lafaha laga helo oo ku dhawaad 50% macdanaha kale iyada ugu fara badan macdanaha calciumta kale laguma sameeyo jirkeena ee waxaynu ka helnaa cuntada haddii aanad helin macdan kugu filan jirku wuxuu ka soo qaadanayaa lafihii taas oo sababaysa in lafihii ay ku yaraato macdanahan iyo kale kadibna ay si laftii ay jilicdo si yaro fududna qofkii u jabi karo marka waxa muhiim ah inaad isticmaasho ama aad cunto macdano ku filan maalin kasta haddii xilliga da'da 40 jir oo kale ama wixii ka sii dambeeya siiba dumarka oo kale waxay aad ugu nugul yihiin lafuhu inay jilcaan taana waxa sabab iyo lafo burbur oo kale taana waxa sababaysa waxaana sabab ah isbedelka hormoonada marka waxaana muhiim ah inaad saddex iska ilaaliso fitamiinka cadceedda la'aan iska ilaali calcium la'aan iska ilaali exercise la'aan ama jimicsi la'aan iska ilaali waayo kuwani waxay door muhiim ah ka qaataan lafaha iyo in lafuhu ku jilcaan si fududna ay u barbaraan taasoo keenaysa inay si yar oo qofku markuu ama hadduu kufo oo kale ama dhaco kale inuu laftii jabto sidee adaba aad u heli kartaa lafo caafimaad qaba waxa muhiim ah inaad cunto qudaar aad u fara badan ama waxyaabaha greenka ah oo kale qudaarahaas oo kale kuwaas oo muhiim u ah lafaha muhiim u ah iyo qudaartiina vitamin fara badan oo ku jiraan oo aad ba vitamin ugu fara badan yahay taas oo soo faa'iido u leh unugyada lafaha talabaad kale waxa muhiim ah inaad cunto protein kugu filan waayo laftu waxay aad ka sabaysan tahay saddex meelood oo meel ahaan protein ay ka sabaysan tahay proteinkaas oo u muhiim u ah lafaheena talabaad kale waxa iyaduna aad muhiim ah inaad cuntooyinka cagaaran si aad calcium muhiim u hesho waxa ayaguna muhiim ah inaad hesho fitamiinka cadceedda horena waan uga hadalay taas waana daawan doontaa fiidiyogaas iyo inaad samayso jimicsi si aad u hesho lafahaaga adkaadaan ay u dhismaan miisaankaagiina uu u noqdo miisaan la ilaalinayo waa mahadsantihiin